إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة العزاء weli waxaan wada jirnaa muxaadaradii aan hadlaynay iftiiminta ahkaamta ku saabsan soonka waxaynu ku jirnaa qaybtii aan hadlaynay shuruudu soomi soonka shuruuda uu leeyahay gaar ahaan waxaan ku jirnaa shardigii afraad ee ahaa al-iqaamatu soonka qofku wuxuu ku waajibayaa markuu yahay qof muqiim ah waxaan ka soo hadalnay marka qofka musaafirka ah xaaladihiisa inta ay noqonayso muxaadaradii ugu dambeysay waxaan soo sheegnay qofka musaafirka ah inuu afuro inuu soomo keeba u fadhi badan saddex xaalaba loo kala qaadaha niri xaaladda koowaad waxay ahayd hadduu qofka musaafirka soonka uunan dhibaynin qofkaasi waxa u fiican inuu soomo xaaladda labaad waxay ahayd hadduu qofka musaafirka soonka dhibaya dhib laakiin uu u dul qaadan kara qofkaasi waxa u fiican asiga inuu afuro xaaladda saddexaad waxay ahayd qofka musaafirka soonka uu dhibaya waliba dhib aad u darano ay dhici kartaba inuu u geeriyoodo ama dhibaato kale ay soo gaarto qofkaasi inuu soomo waa ka xaaraan inuu afuro ayaa waajib ku ah masala arinta raacsana waxa weeyaan qofka musaafirka ah ma loo jiideeyo ma u banaan tahay maalintii oo dhan inta uu safarka ku jiro inuu afursanaado yani inta uu safarka ku jiro dhan inuu afursanaado mase waxaa jirta waqtiye ama maalmo haddii qofkaasi uu gaaro la leeyahay inuu yani marayta afurnaado lama raba ee inuu sooma waajib ku tahay haddii qofkii musaafirka ahaa ee uu niyeysay inuu joogo meel 4 maalmood wax ka badan qofka asaga waxaa leeyahay wuxuu qaadanayaa dadka meesha degan xukunka ay leeyihiin oo waxa laga rabaa inuu soomo waa si ay qabaan jumhuur ahli ilmi oo maalikiyada shaafiicida xanaabila ay kamid yihiin haddii si qofku uu niyeyso inuu meel joogo 4 maalmood wax ka yar ama uusan garanayninba xilliga uu joogin karo oo maxduudka ah ama maba niyeysanin inuu meel joogo waqti gaar ah qofka asaga waxa u banaan inuu afuro ilaa uu dhulkiisa ugu laabanayo mas'alada macnaheedu waxa weeyaan qofka musaafirka wuxuu niyeystay inuu meeshii u safray inuu joogo 4 maalmood wax ka badan qofka asaga dadka meesha degan xukunkooda buu qaadanayaayo inuu soomo ayaa waajib ku ah haddii qofka uu niyeysay 4 maalmood ka yar inuu meeshan joogayo ama uu san niyeysanin inuu waqti gaar uu joogayo qofka asaga inuu afura u banaan ilaa dhulkiisa u soo laabanayo mas'ala kale waxay tahay qofkii musaafirka ah hadduu yimaado gurigiisa maalin ramadaan dhexdeeda asigoo waliba afuran ma waajib ay ku tahay ilaa quraha ka dhacdo inuu soo waxba cunin mas'ala muhiim weeyaan walaal mas'alada waxa weeyaan qofka musaafirka waxa dhici karto inuu gurigiisi ama yani wadankiisa ku soo laabto maalin ramadaan bartamaheedii xaafadiisi buu yimiday musaafir horta ma aha qofkii muqiim weeyaan qofkaasi maalinta intii hartay inuu wax iska cuno ma banaan tahay ma soo afhaysanaya arintaas bay culimadu isku khilaafeen ilaa 2 qowl ay arintaasi ku jiro qowl koowaad wuxuu leeyahay qofka asaga maalinta intii ka soo hadhay inuu afhayso waajib kuma ahan inuu wax cuno wax cabano u banaan tahay waana qowl maalikiyada iyo shaafiicida ay qabaan iyo riwaayo Imam Ahmed lawi radiyallahu ta'ala anhu waradahu qowl kale wuxuu leeyahay maalinta intii ka hartay inuu afxirnaada waajib ku ah ee uusan waxba cunin mar hadduu gurihiisi ama dhulkiisa u soo laabtay waa qowl xanafiyada iyo xanaabilada ay qabaan waana waj shaafiicida agtooda ahaaday waana si oo doortay Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi mas'alada marka labada qowl baa ku jirto waxa samoodaa qowlka dhahaya qofka musaafirka safar hadduu ka soo laabtay oo gurihiisa iyo dhulkiisa u yimiday maalinta intii soo hartay ha afhays in la dhehinin sababtoo ah maalinta gelinkeedii horeba inuu soomo waajib kuma yahay soomahan oo wuxuu haystay sabab u banaynay inuu afurnaado sababkan wali wuu taagan baa la dhihi karaa wallahu a'lam shardiga shanaadna wuxuu ahaa ad-daharatu min al-hayd wan-nifas haweeney in daahir ka tahay dhiigi caadada iyo dhiigi umasha in daahir ka tahay shuruudda soonka uu ku waajibayo kuna ansaxayo hadii la waayo uusan ansixinin waxa kamid ah haweeney inay dhiigi caadada ahaa ama dhiigi umasha ay ka daahir ahaato haweeney dhiigi u joog ama umul ku jirto labadoodaba kuma waajibayo soonna ka ansixi maayo haday soomaan inay qadayana waajib ku ah ummul mu'miniin Aisha radhiyallahu ta'ala anha waradaha waxay leedahay kunna nahiidu ala ahdi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam xiligi nabiga alayhi salatu wasallam waan xeedi jirnay tiri fa nu'maru bi qada'i as-sawmi soonka inaan qadayna waana la fari jiray wala nu'maru bi qada'i as-salati salaada inaan qadayna lama fari jirin xadiiska waa xadiis sahih muslim ayaa soo saaray
halka waxa laga garanaa haweeneyda haddii aysan daahir ahayn inaysan soomi karin. haddii ay dhacdo haweeneydii in ay soonto maqrib ka horna ay dareento inuu dhiig ka yimid, maalan waxaa dhici karto haweeney maalinta oo dhan way sooneeday, hase ahaatee markay qoraxda dhacaysay oo wax yarba afurka uu ka dhiman yahay ay waxay dareentay inuu dhiigi ka yimi ama xeyd ama nifaas wuxuu doona ha noqday haweeneydaas iyada soonkeeda waa buray, in qadaysana waajib ku ah. arrinta waa muhiim walaalayaal. haweeneydii maanta dhan sooneeday hase ahaatee maqribkii ama afurka ka hor dhiig uu ka yimiday, soonkeeda wuu burayaa, in qadaysana waajib ayuu ku yahay. haddii ay dhacdo haweeneyd inuu waagu u baryo iyada oo dhiig uu joogo amaba dhiigii umasha oo weli ku dabeeyo, haddii maalinta ay soonto soonkeeda ansixi maayo. hadday rabto ha dhaahir noqoto waaga markuu baray kadib wax yar, hase ahaatee hadday dhaahir noqoto haweeneydii xaydka ama nifaaska u joogay intuu waaga baryin ka hor inay soontaa ku waajibaya walow yayba qubaysanin ilaa waaga markuu baray kadib mooyaane. oo macnaheedu waxa weeyaan haweeneydii qabla alfajri ama salaad subaxdii ka hor ayayba dhaahir noqotayba, weli idoon qubaysanin ayay macnaha salaada ku dhalatay, inay soonto waajib ay ku tahay, yani markaas kadib ayna qubaysanaysaa. waana sida ay qabaan ahlu cilmiga intooda badan. waxaan loo qiyaasanaya qofka janaabada qabay. ummuna caaisha iyo ummu salama radiyallahu ta'ala anhuma waxay sheegeen ana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam kaana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahli, salaada nabiga ku dhala jirtay asoo janaabo qaba, thumma kadibna yaqtasilu wa qubaysan jiray ويصوم وانسوم جري. حديث حديث صحيح البخاري مسلم يا صاري. امام النووي رحمه الله عليه حديث كان مركو شرحه في صحيح مسلم ايو وحو كيري واذا انقطع دم الحائض والنفساء haweeneyda dhiig umas u joogo iimida xeydku u joogo dhiigooda haduu go'o fi leeyl habeenka dhexdiisi thumma dala'a al-fajr kadibna waagu u bariya qabla iqtisalihima intayna qubaysanan ka hor saxa sawmuhuma soonkoodu ansaxaya wa wajaba alayhima itmamuhu in taam yeelan ay waajib ku ah haday rabaan qubays ka saa ugu tagaan ama sahwi ama cudurdaar ugu tagaan ama cudurdaar la'aan ha ugu tagaan in qubaysaan ay waajib ku ah saasuu imaam Nawawi rahmatullahi alayhi. waxa raba inaan baraarujiyo masaa'il ama arrimo ama faa'iidooyin haweenka anfacahayo. waxaa kamid masaa'ishaasi haday haweeneydii dareento xanuunkii dhiiga oo xeydka ay dareento ama caloosha dhexdeeda uu dhiig dhaqaaqay hasaatee dhiiga uusan soo bixin ilaa qorax markay dhacdo kadib mooyaane oo maalintina ay sooneed maalintaas soonkeedu uu ansaxaya wax laga raba ma jirto. haweeneydan waxay dareentay xanuunkii dhiig inuu haayo hasaatee dhiig banaanku ma soo bixin waana sooneeday, soonka iska sii wadanaysa ilaa wixii ay ka cadaanayaan. hadii qorax markay dhacdo ka bacdi uu dhiig yimaadana waxa la maalintaas soonkeedu waa ku jira waxba kaama halaabin. arrin kale waxay tahay haweenku qaar ay waxay u maleynayaan hadii maghrib kadib dhiig uu ka yimaado intayna wali cishaha dukanin waxay u qabaan maalintaas iyada soonku inuu fasahaday. arrintan wax kama jiraan weeyaan. arrin kale waxa weeyaan haweeneydii umasha ku jirtay haday dhaar noqoto 40 maalmood ka hor waxa waajib ku ah inay soonto ramadaanka hadii ku dhex sugan tahay weeyaan. wax soo kale waxa ku waajib inay dukato sababtoo waa daahir oo wax ka mamnuuc ah ma jiraan weeyaan. yani 40 maalmood haweeneyd inay gaartay shardi ma ahan. misal kale muhiim waxa weeyaan idana haweeneyda dhabar furun ku dhacay soon iyo salaad midnaba ka joogi mayso. dhabar furunka waxa weeyaan waa dhiig aan caadana shaqo ku lahayn umalna aan shaqo ku lahayn oo iska socdo weeyaan oo jiro ku yimiday. dhiig saxaadada ama damul fasaadka loo yaqaan waxay culimadu leeyihiin waa dhiig haweeneyda ka soo baxa farjigeeda waliba ka soo baxa xidid gadaal jiro oo lagu magacaabo caadil kuna soo baxa qaab xanuun ah ama cilla ku soo baxa. waliba waxa dhici karta inuu soo baxa haweeneyda umul ku jirin ama dhiig xeydku uusan u joogin. haweeneyda dhabar furun ku dhac maxay sameeyeen? way qubaysanaysaa, nijaasada iska zuulinaysaa, waxay ku dadaalaysaa meesha uu dhiiga ka socdo inay good ku xirto intii uu suuragal ahba si ay dhiig u joojiso ama ay yani maragtay meesha ugu celiso u yareyso. kadibna way dukanaysaa salaadeeda iyo soonkeedana wuu ansaxayaa. xaasaday tahayna ninkeeda iyada waa wada kulmi karaan. waxaan rabnaa inaan ogaano farqiga u dhaxeeya damul hayd iyo damul istixaada. dhiiga haweenka ka yimaado oo damul haydka loo yaqaan caadada loo yaqaano iyo midkan dhabar furanka loo yaqaanayo farqiga u dhaxeeya muxuu yahay? farqiga u dhaxeeya waxa koow ka ah xagga dabiic ahaan, yani dabiicad ahaan labadan dhiig way kala duwan yihiin. sababtoo ah dhiiga haydka waa dhiig dabiici ah oo ay dabiicada keentay, ama dhiiga istixaadaha soo maahan asigu waa dhiig cilla ay keentay. wuxuu tusinayaa in haweeneyda ay xanuunsan tahay. laba waxay kala duwan yihiin xagga makaanka uu dhiigu ka soo baxayo. dhiiga haydka wuxuu ka soo baxaa oo ka yimaada haweeneyda riximkeedii meesha ugu fog, ama dhiiga istixaadada soo maahan asiga wuxuu ka soo dareeraa xidid oo riximka ka hooseeya oo caadi loo yaqaan. waxa kala duwan yihiin xagga midibka iyo jareeca. midibkii jareeca kala duwan yihiin. مثلا dhiiga haydka
waa dhiig madow madow waxa weeyaan gaduudka madow isku bedalay haddana adag waa dhiig madow oo adag ama dhiig saxaada waxa weeyaan sida badan waa dhiig cas jalcan oo waliba ifahayo waxay kula duwan dhiiga xeedka dhiiga fasaadka xagga urka oo dhiiga xeedka aad buu uraya oo urkiisana waa la ka hadaa ama dhiiga saxaada asiisa urima waa dhiig caadi ah halka waxaan garanaynaa labadan dhiig farqi baa u dhaxeeyo oo ay kala duwan yihiin dhiigan fasaadka ee cudur ku yimid iyo dhiigan xeedka ku yimid way kala duwan yihiin midka fasaadka ku yimid ama xanuun ama jiro ku yimid oo aan u naqaan dhabar furan ka asaga salaad iyo soon midna uu joojin meeysa haweeneyda waa wadaysaa waxay kamid noqonaysaa dadka asxaabul cadaarka ee la raba inay bartaan ahkaamta ku saabsan cadaarta ama cudurka waxa kale oo jirto ahlu cilmiga soo khilaafeen oo muhiim ah in haweenka ogaadaan la doonayo wax weeyaan haweeneyda uur kale dhiig ma ka yimaada haweeneyda uur kale xeyd ma ka imaan karaa waxa asal ah haween uur leh inaysan xeydaynin ama dhiig uusan ka imaanin waa asal laakiin waxa dhici karta culimadu yiraahdeen haween qaar inay shaad ka noqdaan oo iyago uur leh uu dhiig ka yimaado dhiigaas marka waa la fiirinayaa hadduu dhiigaasi uu eg yahay dhiigii xeydka oo tilmaamihii xeydka uu leeyahay waxaa la dhahayaa dhiigaasi waa xeyd oo xeyd baa lagu tirinayaa waxaa ka reebtoonaanaya oon ka ansixinin salaadii iyo soonkii wax kaasoo haweeneyda xaaidada aheeda ee ka xaaraan ah ayaa iyadana ka xaaraan noqon hayo ama haweeneyda uur kale dhiiga ka imaana hadduu noqdo dhiig ka duwan dhiigii xeydka waqtigiis waqti ahayn u yimaado asiga waxaa la leeyahay damul xeyd ma ahan damul fasaad baa laga soo qaadahaya waxaa kaloo jirto haddii haweeney uur leh ay ilmihii kasoo dilmaan haweeney uur leh ayaa ilmihii kasoo dilmeen maxaa la samaynayaa waxaa la fiirinayaa canuga soo dilmay hadduu yahay canug weli aan la uumin oo dhiig un ah dhiigaas isaga ma ahan dhiigii nifaaska baa la leeyahay saa darteed marka haweeneydii way soomay way salaadaysaa oo soonkeena waa saxiix wax ka xaaraan ana ma jiro haddii uu janiinka ama uurku jirihi uu noqdo mid la uumay oo yani maaragtay bini aadan u ekaaday canugaas markay dhashay kabacdi dhiigga haweeneyda ka yimid waxaa loo aqoonsanaya inuu yahay damul nifaas dhiiggii nifaaska inuu yahay saa darteed marka inaad dukato inaad soonto uma xalaal aha oo waxaa ka xaaraan noqonaya wixii haweeney uman ku jirta ka xaaraan noqon lahaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa wa aclam